madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud booqashadii uu ku tagay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxa ay dib u kicisay dardargelinta howlgallada ka dhanka kooxda qawaariijta ee shabaab mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya heer federaal iyo heer dowlad goboleed saraakiil ciidan iyo xubno kale oo ka soo jeeda degmada ceeldheer ayaa ku sugan kuwaas oo dhexda u xirtay soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda dalka mudane xasan sheekh maxamuud wasiirka howlaha guud iyo guryeynta galmudug axmed dhiblaawe casir agaasimaha maamulka dhulka gobolka banaadir cabdi bare korneel daar tuurere ayaa si wada jir ula hadlay warbaahinta qaranka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan runtii maantay oo maalin taariikhi ah aad iyo aad u soo dhaweynaynaa booqashada taariikhiga ah ee degmada facaweyn ee degmada ceeldheer oo ku soo gaareen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka mahad celinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maantay soo booqday degmadan qadiimiga ah ceeldheer iyo wafdiga oo hogaaminaya oo kamid yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhigga iyo xubnaha kale ee la socday labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hoose dhamaantood aad u mahadsan yihiin sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa reer ceeldheer oo maanta runtii muujiyay soo dhaweyn aad u qurux badan degmada ceeldheer waxaan ku amaanaynaa inay tahay degmada kaliya ee degmooyinka dib loo xureeyay ay dadkoodii ku dhiiradeen inay khawaarijta la dagaalamaan afka iyo adinka ay intaba kula dagaalamaan bulshaweynta degmada ceeldheer taasoo maanta madaxweynaheedii qaranka iyo madaxweynihii dowlad goboleedka labaduba ay booqasho ugu yimideen kadib xoreyntii deegaankan oo muddo la isugu soo laalaabtay kana marqaati kaceen labadooduba degmadan ceeldheer inay tahay degmo bulshadeedu ay nabadda jeceshahay oo kalkii horena oo degmada la xoreeyana siday bulshadu kowda luulyo xuseen oo 26 juun xuseen haddana madaxweynaha sidii u soo dhaweeyeen oo la sheegay in degmo la xoreeyay oo loogu soo dhaweeyay aanay jirin marka aadan u hambalyeynayna aniga sarkaal ahaan waa ciidamada iyo qaabka degmadan lagu qabtay qaab waxay ahayd aad maaragtay muhiim u ah saraakiishii abaabuleysay deegaanka qabashadooda iyo cudud iyo xoog gelisaan kamid ahaa ciidamadeena maanta ciidamada dhan madaxweynuhu u booqday odayaasha deegaanka iyo barbaarta degmada ayaa dhankooda sheegay in ay muddo sugayeen imaatinka madaxweynaha jamhuuriyadda sidaan ugu diyaargaroon ilaahayba og soo dhaweyntaas qaaliga ah saan ugu diyaargaroon iyo waxaad hadhow arki doontaan taas ilaahayba maqaalo guda waxaan mahaddaas iskale allaha maanta isu kaaya keenoo la kulansiiyey degmadana waa degmadii qadiimiga ahayd ceeldheer farxaddana maanta ma aha mid la qiyaasi kara ma aha aad iyo aadan maaragtay aan u qiiraysannahay u faraxsannahay maadaama madax aad baan u soo dhaweynaynaa maxamed cali culusow ayaa tilmaamay in loo jihaystay dagaalka qawaariijta maalmo kadibna arxalnaawayaasha laga eryi doono deegaana hoostaga degmada ceeldheer oo ay weli ku dhuumaalaysanayaan aad iyo aad u mahadsantihiin war waa noo dhiman yahay talo waa noo dhiman tahay mar haddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo u dhashay ceeldheer mar hadduu maanta ceeldheer ku soo hadaago war waa noo dhiman yahay waxaan rabnaa 3 qodob inaan kala qaadanno degmada ceeldheer waxa ay dirtay fariin muujisay sida ay ugu baahi qabto dawladnimada isla markaana ay diyaar u tahay dhamaystirka qawaariijta nafla caariga ah